daawadayaal ma ogtihiin qolkan qofka hal saac gudihiisa fadhiya inuu waalanayo. Qolkan waxaa loo yaqaanaa qolka aamusnaanta. Waa meesha ugu degan adduunka. Qolkan haddaba waxaa dhistay shirkadda Microsoft, waxaana qolkan lagu dhisay lacag gaadhaysa $1 milyan oo doolarka Maraykanka ah. waxaanay ugu talagaleen si ay ugu tijaabsadaan waxyaalaha ay ugu talagaleen maqalka sida samecadaha dhagaha iyo wixii la midka ah. qolkanna muddada loogu talagalay in qofku bini'aadamkii dhex fadhiyi karo waxa weeyaan saacad iyo 15 daqiiqo. haddaba daawada qolkan markaad gasho ma maqli doontid keliya wadnaha garaaciisa, laakiinse dareemadaada oo dhan ayaa soo jeesan doona. wax kasta oo sanqarayo jirkaaga ku saabsanna waad maqli doontaa. waxaanad noqon doontaa qof ka firfircoon sidii hore, maxaa yeelay waxaad maqli doontaa dareemadaada oo dhan waxaanay noqon doonaan qaar aad u foojigan. haddaba daawad adigan ku weydiiyey, haddii qolkan lagu odhan lahaa dhex fadhi, waxaa lagu siinayaa lacag aad u fara badane, ma dhex fadhiyi lahayd? Fadlan dhinaca faallada wixii ra'yigaaga noogu reeb.